كل تونا كساحب يا رسول الله حرام أنا إذا لو ذا وركي ودم بي دجالك ما أنت كده عيد دجمة آذن يوال تاس أو الشاب يقول ودم بين كل وريين قاعد كهين دجمة آذن يوال أو مدة هيد فريسين عيدك حقوق دك سومالي لقى أبو بلو الرضا الشاب يكون قادان بس ugu dambeyn aadan iyo walaal dalshaw ay gacanta ku haya sidoo kale waxaan rabaa inaan kula wadaago khudbad maanta u jeediyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo ugu hadlay dagaalkii maanta ka dhacay degmada aadan iyo walaal balse madaxweynaha khudbada u jeediyay waxa ku jiray hadal cajiib ah muxuu yahay hadalkaasi waan kula wadaagi doonaa isagana balse marka hore waxaan ka codsanayaa sidii balanta ahayd been subscribe channelka like na si aan u helo saaxiibadiga kale aad iyo aad ma santahay aan ku bilowno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbad u jeediyay oo kaga hadlayay dagaalkii maanta ka dhacay degmada aadan iyo walaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas uu ogyahay inay ku sugnaayeen gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee taliye ciidanka xoogga Soomaaliya General Odwa Yuusuf Raag oo ilaa hadda la soo warinayo in geeri nolol ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin laayahay madaxweynaha khudbadiisa hadalka cajiibka ah ku jiray waxa kamid ahaa in uu yiri al-shabaab 2 sano ayaan ka guuleysanay hadii maanta ay naga guuleysteen micnaheeda ma ahan inay naga adkaadeen dadkan in la niyad jabiyo ma ahan balse waan ka guuleysanaynaa meel walba joogaan waan ka xoreynayna ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud bal ila daawa madaxweynaha khudbadiisa saakay meel waxa ka dhacaya it's a battlefield waa meedan waa goob dagaal sax af Soomaali saxda waa goob dagaal iyo dagaal guudan anaga shabaab kula joogna all over the country meesha hadda awood saran dagaalkaas guud waanan ku guuleysanay waanan wadnaa laakiin maxaa dhacayo goob dagaal maalna lagu riixa maalna wax riixay maalna waa laga adkaana maalna waa adkaanay maalma isdaba socda laga adkaana maalma isdaba socda adkaan 2 sano oo la soo dhaaf 2 sano hore isdaba tiilay ayaan adkaanay oo aan daba soconay marka qaarkood in anaga nalaga adkaado la soo daba kacay that's not me taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay dadka u tusay dagaalka waa lagu fashilay xaqay ka dhacday shabaaba cirka maray inta ka baxay ciidan ma jiro ciidan maxaan ku raadayay dagaalama ma jiro ciidamadu waa kala yaaceen way u kala yaaceen meesha waa la qabsaday adeeda askari ma ayno wax dagaalamay oo laga qabsaday oo joogay wax la kala yaacay iyo wax kala tagay ma jiraan mid kale meeqa degmo oo dalka ku taalo ayaa shabaab laga inaad fahantaan rajeynaya khudbada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hadalkiisa iyo ujeedada wuxuu yahay inaad fahantaan ayaan rajeynaya wixii aragtidaadana commentiga qaybta hoos adiga iska leh oo ku daayay nagula wadaag diiwaan wacno dhankan iyo aadan yawaal maanta waxa ka qarxay mid kamid ah dagaalada ugu cuslaa oo in dhawaalaha dhexmaray ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kooxda al-shabaab ayaa saakay 4 jiha oo weerar ah waxay ku soo qaaday degmada aadan yawaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe weerarkan al-shabaab waxay ku bilaabeen qaraxyo waxayna fariisinta ciidanka xoogga Soomaaliyeed halkaas ay ku lahaayeen al-shabaab qaraxyo gudaha ay u soo galeen dagaalkan al-shabaab saakay ku soo qaadeen aadan yawaal al-shabaab xirada waa looga baxay kadib markii qaraxyo weerar ku bilaabay halkaas ay ku soo qaadeen waxaana ilaa hadda degmada aadan yawaal ka arimayay ama ka talinaya xoogga al-shabaab maalmihii la soo dhaafay waxa laga xoreeyay deegaano badan iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe taas oo ay xusud mudan tahay inay ugu dambeeyay deegaanada iyo degmooyinka al-shabaab laga saaray inay yihiin Runirgood Daaru Nimco iyo qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Awoorey balse al-shabaab ayaa maalmo ka hor dagaalyahanadii ka joogay qaybo ka tirsan gobolada Bay iyo Boqol waxay isugu wada keentay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe taas oo ugu dambeyn al-shabaab saakay weerar dagaalyahanadii isugu keentay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay weerar ku qaadeen degmada aadan yawaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo muddo dhawaanaha fariisan u ahayd ciidanka xoogga Soomaaliyeed meelaha ay ka amar qaataan lagana hogaamiyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab aadan yawaal muddo 2 sano ay dawlad gacanta ku haysaa balse ciidamada xoogga Soomaaliyeed waxa lagu waramayaa in hadda ay ku sugan yihiin meel u dhow degmada aadan yawaal halkaas oo ay iska soo abaabulayaan ayna rabaan inay dib u la wareegaan xerada degmada aadan yawaal ay ku lahaayeen xerada waxa ku sugnaa oo markii hore dagaalka ka abaabuli jiray ciidanka ka hogaamin jiray taliye ciidanka xoogga Soomaaliyeed General Odwa Yuusuf Raag iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote iyo Odwa waxa soo warinaya saacadihii la soo dhaafay in ilaa iyo hadda meel ay ku sugan yihiin raqi ruux aan la ogeyn balse wararka qaar ayaa sheegaya in taliyaha iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay nabad qabaan ayna hadda joogaan meel degmada aadan yawaal u dhow halkaasna ay weerar kale ka soo abaabulayaan si ay iyagoo raba in ay la wareegaan gacan ku haynta degmada aadan yawaal mar labaad
sidoo kale al-shabaab berihi soo dhaafay waxay xoojisay weerarada sidaan oo kale ay ku qaadaan fariisimaha ciidanka ay ku leeyihiin qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose balse in dhawaana ah ciidanka xoogga Soomaaliyeed way ka caaganayeen weerar sidaan oo kale in al-shabaab ay ku soo qaadaan sababtoo ah ciidanka ayaa awaamiir culus oo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida istiraatiijiyad cusub ay u dejiyeen ayaa suuro gelisay in ciidanka guud ahaanba ay foojignaadaan meel kasta oo ay kaga sugayeen qeyfurimaha hore ee dagaalka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan baad ahaan lahayd taas balse ugu dambeyntii al-shabaab ayaa hadda u muuqata in ay soo laba kacleysay bacdama saakay ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe al-shabaab ayaa maalmo ka hor dagaalyahanadii ugu badnaayay waxay ka soo rartay qaybihii ay kaga sugnaayeen gobolada Baay iyo Bakool bacdama halkaas heshiis oo qarsoodi ah oo u dhaxeeyay maamulka Xudur iyo al-shabaab halkaas ay ku gaareen kadib markii maamulka degmada Xudur iyo al-shabaab dagaalyahanadeeda ugu badnaa waxay ka soo wada saartay qaybaha ay kaga sugnaayeen gobolada Baay iyo Bakool iyagoo hadda ugu dambeyntii al-shabaab maalmihii la soo dhaafay dagaalyahanadii ugu badnaa iskugu soo ururinayay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayay saaki ugu dambeyn al-shabaab waxa u suura gashay in ay la wareegaanba guud ahaan gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidoo kale waxaa la soo warinayaa in diyaaradaha duqeymaha isla galabnimadan ay duqeymo ka fulinayaan degmada Aadan Yabaal bacdama ay ku sugiyiin kooxaha al-shabaab oo saakay gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal la wareegay si kastaba maalmihii la soo dhaafay ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa dardar ku waday dagaalada ka dhanka kooxda al-shabaab iyagoo degmooyin iyo deegaano badan al-shabaab kala wareegay balse ugu dambeyn al-shabaab ayaa soo laba kacleysa maanta waxay la wareegtay gacan ku haynta degmada Aadan Yabaal iyadoo xisad badan tahay in bishii Ramadaan intii aan ku guda jirnay al-shabaab ay la wareegtay gacan ku haynta degmada Masaajid Cali-Guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe balse ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka oo iskaashanaya ayaa al-shabaab halkaas ka saaray waxaana hadda degmada Masaajid Cali-Guud ku sugan ciidanka xoogga Soomaaliyeed si lamid ah idan waxaa la rajeynayaa in al-shabaab socda halkaas haysta la soo afjaro ay xiradana dib ula wareegaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee halkaas ku sugan wixii war ka soo kordha adiga ayaa ugu horeyn doona qofka daawada waxaan ka codsanay haddii ay tahay markii hore ay soo booqatay inaad subscribe ila channelka like iyo saartisi aan u helno saaxiibadii oo kale